kulan looga hadlayay mideynta iyo nabadda dhalinyarada magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay magaaladaasi. Fafaahinta warkan waxaa eegaya wariyahayaga Saabir Cabduqaadir Warsame Saabir Honesty. shirkan oo socon doona muddo dhowr cisho ah isla markaasina loo qabtay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa looga hadlayay mideynta iyo nabadeynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. ugu horeyna waxaa munaasabada ka hadlay Xaliimo Faarax Godane oo ah madaxa hay'adda nabadeynta haweenka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mid ah ururka hooyooyinka waxaana ay sheegeen in maanta aan dah furayno maxay ahayd barnaamijkii soo socday ku soo wajahnaa haweenka markii ay sameysteen dallad nabadayna inaan maanta u gudubnay dhalinyaradii waxaan rabnaa inaan gaarno qaybaha bulshada oo dhan sida odayaasha waxgaradka aqoon-yahanka si aan u soo baxdo bulsho nadiif ah oo nidaamkeeda garab taagan oo maamulkeeda la shaqeyso oo qalbi saafi ah oo aan isu xumayn oo aan iscuqdadaynin inaan helno kaliya ayaa wuxuu yahay barnaamijkan uu ku salaysan yahay haddaba dhalinyarada waa tuma waa kee dhalinyarada waa tee dhalinyarada waa xoogga maanta jooga dalka waa maskaxda la rabo maanta inay caafimaad geliso dalka iyo dadka dhalinyarada waxaan u xulanay annaga iyo dhalinyaradu nugul baan dadka ugu nugul baan dadka diyaaradaha lagu qaadi jiray meelaha la geynayo ee magacyahan sheeg karin oo fog la geyn jiray kuma aanaan jirin waana la iloobi haddana la xusuustay haddii la xusuustoon annagii dheregnay waxaan isdiri oo aan wax baranay waxyaalo badan oo barashada loo dhigay horta koob bal xagaan kula qofnaa dhalinyarada nada tahriibaysa istiraysa aanis aqoonin aanis baranin barashadu ma aha qabiilkaaga un inaad barato dhanka kale waxaa hadal kooban qaatay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Gooni waqtiga awgii kulay qolihii inaga horeeyay wixii ay ka hadleen wax ka duwan ka hadlamayno laakiin waxaan rabaa hal qodob isleeyahay muhiim buu ku yahay munaasabadan ku wajahan nabadeynta dhalinyarada inaan yar dul istaago haddii ilaahay ii saamo dhalinyaro markii la yidhaahdo waxaa weeyaan waa meel buu ka bilaabmaa meel buu ku dhammaadaa waa from 15 year 15 ilaa 40 yaa lagu qiyaasaa qofka inuu dhalinyaro iyo xoog yahay xilligaas waxaa weeyaan haddii uu generationkii uusan soo barbaarin oo aqoon iyo beeyo fiican oo aan lahayn violence dagaal iyo aan lahayn haddii ilaahay kuu sabogol yahay gaajo oo aan lahayn haddii ilaahay kuu sabogol yahay waxbarasho la'aan bulsho ayuu wax ka bedelaa ugu dambeyntii ayaa waxaa soo gabagabeeyay isla markaasina dah furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Jubbaland Cabdiqaadir Maxamed Faarax muhiimadu waxay tahay barnaamijka iska wasaaradda wasaaradda dhalinyarada sportiga rakali umani barnaamijkan uu dah furay yahay uu shaqeynaya uu soconaya insha Allah sanadka cusub uu tabageli doona waana dah furay Saabir Cabduqaadir Warsame Saabir Honesty telefishinka Somali Cable Kismaayo.